laakiin dagaalkii shalay dabadda ka dhacay laba askari baa nagaga dhintay. Allahu naxariistaan leenahay, ehelkoodii iyo qaraabadoodiina waan ka tacsiyeynaynaa iyo guud ahaan qaranka Somaliland. waa askar u dhintay wada noolaanshaha bulshada gobolka Sanaag, waxay u dhinteen midnimada gobolka Sanaag. waanu ka tacsiyeynaynaa si gaar ah iyo si guud baanu ka tacsiyeynaynaa. dhaawacyaduna ilaa 4 askari baan hubnaa oo dhaawacyo fudud ah. khasaaraha gaadhay maleeshiyaadka soo weeraray maxaan ku raahdaa ciidanka qaranka, iyaga faahfaahintooda si buuxda waa itigis ciidan oo ciidanka u bixin doona. waxaan u mahadnaqaynaa oo aan bogaadin iyo hambalyo u diraynaa ciidanka kala duwan ee jamhuuriyadda Somaliland qaybihiisa kala duwan. howlgallo soo bilaabmay 12kii bisha 13kii bisha 15aad aan idhaahdo howlgallo soo bilaabmay 13kii bishii 12aad 2024 kuwaasoo horaantoodii lagu fuliyey degmada Caarigaabo aakhirkiina u baxay dhinaca maxaan ku raahdaa deegaanada degmada Caarigaabo hoos yimaada. guud ahaan ciidamada howlgallada ku jiray si guud baan ugu hambalyeynayaa oo u bogaadinayaa. waxaan si khaas ah usii bogaadinayaa ciidanka qaranka, khaasatan fadhiisimihiisa qaybta 3aad howlgalladii ay amniga ku sugayeen, maleeshiyaadkii soo duulayeyna ay ku mariyeen waajibaadkooda. waan ugu hambalyeynayaa, waana ugu ducaynayaa. waxaana idin leeyahay waxay u hiiliseen wada jirka bulshada, waxay u hiiliseen qarannimada jamhuuriyadda Somaliland iyo midnimadeeda, waxay u hiiliseen cid walba oo rabitaan iyo himilo ka lahayd nabadgelyada degmada Caarigaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag oo dhan. waxay u hiiliseen mar kale wada noolaanshaha bulshada Caarigaabo iyo axdi qarameedkii ay ku wada noolaayeen ee nabadgelyada ahaa, idinka oo ka difaacay kooxo gaar ugu abaabulnaa inay qas geliyaan nabadgelyada degmada Caarigaabo. waxaan mar walba ka digaynaa in la reereeyo lagana dhigo reer gaara, ama inay reer gaar iyo cadow ku yihiin nabadgelyada laga dhigo. kooxahaas waxay kooxo abaabulan oo laga soo abaabulay maleeshiyad beeleedyada ku dagaalama gobolka Sool. marnaba odhan mayno reer oo magaca reerka inagu afka ku soo qaadi mayno. nabadgelyada reerku reero degmada Caarigaabo degaa si fiican oo gacmo isqabasho leh baa waayeelka iyo madax dhaqameedku uga shaqaynayay. marnaba may jirin arrin ay ku kala duwan yihiin, waxay ahayd mar walba arrin waayeelka iyo madax dhaqameedka magaalada Caarigaabo ay nabadgelyadooda inay ka shaqeeyaan mudnaanta ay siinayeen baa gobolka ka jirtay. dadkaas soo duulay ee maleeshiyaadka ee cadowga ku ah wada noolaanshaha bulshada waan uga mahadnaqaynaa. cid walba gacan ka geysatay wixii ay doonayeen iyo wixii ay u socdeen iyo sidii ay rabeen inay bulshada isugu dhuftaanna may suuroobin. mahaddaana waxaa leh oo aan mahadda koowaad iyo talabaadba siinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa ciidankii qaranka ee arrintaa waajibaadkooda qaran ka gutay. waxaan u mahadnaqaynaa taliyayaashooda, waxaan u mahadnaqaynaa taliya guutayaashooda, waxaan u mahadnaqaynaa taliska guud ee ciidanka qaranka. sidoo kale waxaan bogaadin iyo hambalyo gaara siinayaa ciidanka booliiska oo labadii cashee lasoo dhaafay howlgalla ku waday iyaguna degmada Caarigaabo. howlgallada ay ku wadeen maxaabiis ku qaqabtay, maxaan ku idhaahdaa dad badan oo maxaan ku idhaahdaa nabadgelyada magaalada cadow ku ahaa oo maalmihii u dambeysay aanu isha ku haynayna si xirfadaysan oo aan hagrasho lahayn iyagana uga howlgalay. waan u hambalyeynaynaa ciidamada sida gaarkaa u tababaran iyo booliiskana waa u hambalyeynaynaa. taliyahoodan si gaara oo kaliya laaba ugu hambalyeynaynaa oo si hagar la-aan isaguna noola shaqaynaya. waxaan doonayaa mar labaad ciidamada si guud inaan ugu hambaliyeeyo ilaalinta xurmada maxbuusku leeyahay
waxaan doonaynaa mar labaad inaan u sii hambaliyeeyo khaasatan ciidamadii ka dagaalamayay jiidda magaalada ka baxsan sida ay u ilaaliyeen itigiska maxbuusku leeyahay ee aan loo daba dhigin kamarado iyo wixii baryahan dambe ina batay waa haykalka ciidanka qaranku leeyahay bay tahay waxay ilaaliseen haykalnimadii waxay ilaaliseen sharaftii iyo karaamadii ciidanka qaranku lahaa aad iyo aad baan ugu hambaliyeynaya waxaan sidoo kale kaliya laabo hambaliyeynaynaa dadkii deegaanka ee ku baraarugsanaa inay ka qayb qaataan halganka lagula dirirayo kuwa nolosha iyo maxaanku idhaahdaa bulshada noloshooda ku ah cadowga aad iyo aad baan iyagana ugu hambaliyeynaya intaa dabadeed saaka subaxnimadkii hore waxaa bilaabmay howlgallo lagu sugayo ammaanka magaalada Ceerigaabo howlgallada waxaan doonayaa inaan si adag u cambaarayno oo uga digo arrimaha u eeg bililiqada ee ka dhacay maxaanku idhaahdaa xaafadaha qaar magaalada Ceerigaabo waxaan doonayaa inaan bulshada Somaliland iyo guud ahaan bulshada caalamkaba u caddeeyo arrimaha dadkii ku lugta lahaa in qaarkoodna aanu qaqabanay qaarkoodna aanu ku daba jirno dad ka badan dhowr iyo 20 qof baa u xidhan in ka badanna waanu ku daba jirnaa sina u aqbali mayno gobolkuna ka dhici maayo insha Allah waa arrintaa dadkii ku kacay iyadoo wax laga qaban waxaan uga digaynaa cid walba u soo socotay inay iminka arrimaha wax ka qabtaan ama arrimaha ay fuliyaan waan uga digaynaa waxay amar u haystaan ciidamada kala duwan ee sugaya ammaanka magaaladu gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ciidanka booliisku waxay amar ku haystaan cid walba oo lagu qabto bililiqo ama iyadoo guryaha qaar ama xaafadaha qaar arrin shuftaa ugu jirtaa inay tallaabo adag ka qaadaan bay amar ku haystaan meel kale iyo doondoon kale iyo arrin kale oo loo gelaya ma jiraan waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba amar cad oo buuxa u haysataan tallaabo ka qaadkooda dadka ku kacaya falalka mar labaad waxaan doonayaa inaan halkan uga digo ciidamada maxaanku idhaahdaa shicibka ee hubka la soo baxay ama qoryaha sita qofka shicib ah ee Ceerigaabo dhexdeeda qori lagu arko ciidanku waxay u amran yihiin isaga iyo qorigaba inay qaadaan oday baan ka daba iman doonin cid kale looga handan doonaa baan jirin amar buuxa u haysataan ciidamadu dhammaantood waxay u amran yihiin qof walba oo shicib ah oo haysta ama hub la soo baxa magaalada gudaheeda kula soo baxa inaad tallaabo adag ka qaadaan baa xaq u leedihiin idinkuna waajibaadkaas waa midaan idinku dabagelayno insha Allah bismillaahi kariim mar labaad iyo mar saddexaadba bulshada guud ahaan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo waxaan uga digayaa wararka xasarada ah ee bulshada kala qoqobaya ee kala kaxaynaya bulshadana waa bulsho goba waa bulsho guri ku wada nool ma aha bulsho kala maarmi karta mana aha bulsho iyadu dhexdeeda kala adkaan karta waxa isdilayaa ee dagaalamaya waa system iyo systemka cid ku duulan reer ku duulan ma jiro systemka cid ku duulan baanu isdilaynaa oo la dagaalamayna oo aanu meel adag ka taaganahay mar labaad iyo mar saddexaad baa idin hambaliyeenaynaa ciidamada qarankan si gaar ah uga sii hambaliyeenaynaa waxaan rajaynaynaa inaynu meel ka wada taagnaan doono amuuraha iyo wixii kale ee soo kordhaba haddii alla idmo ammaanka magaaladana xoog baa la saarayaa insha Allah bismillaahi kariim fariinta ugu dambaysa aan dirayaa waxa weeye inamada social mediaha figariska ka ama caanka ka arrimaha waa la iskula xisaabtamayaa aad duubaysaan arrimaha ciidamada kula dhex jirtaana waa la iskula xisaabtamayaa xisaab baana ka dambayn doonta haddii Ilaahay idmo waana lagu xisaabtami doonaa insha Allah tallaabo walba ugu dambayn wararka bogabagandada ah ee suuqa la geliyay waxaan doonayaa inaan bulshada ka shaafiyo ma jiro maxaabiis la sii daayay ma jiro maxaabiista dagaalka lagu qabtay waxay leeyihiin itigis iyo haykal qaran bay leeyihiin haykalka qaranka iyo boolisigoodaasayna marayaan ciidan gaar loo sii dayn kara ama cid awood u leedahayna ma jirto arrintaana waxaan doonayaa inaan bulshada ugu bushaareeyo oo dadka propagandaha iyo beenta loo sheegayo aan iyadana taa kaga saaro aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu